إلهي ومد عقابته ومد إلهي اسماعيل مرقولو عقابته إن قلب ونكسب ما هاي على كان ما حكوتو بطي يا تياشا هذي وحبكوا قموا وين أنا وحبكوا ما قمن كرا ولا الدعوة اسكو سو نقد وناكسن waxaa isku keen dambeysay Ramadaantii muuqaal aan soo gelino channel kan alxamdulillah caafimaad baan idin rajaynaynaa anaguna sidoo kale waan caafimaad qabnaa sida aad barnaamijka hordhiciisa ku soo aragteen waxaynu ka hadlaynaa xarig loo geystay muwaadin reer Djibouti waa Aare Suleymaan ninkaasi oo ku xidhan habeenkii saddexaad jeelka gobolka Gabiley iyadoo 24 saacadood ama 48 saacadood ugu dambeeyay social media aad looga hadlayay iyadoo la leeyahay wuxuu xidhan yahay xarig siyaasadeed oo waxa loo gudbin doonaa wadankaasi Djibouti midaasi aan ciidamada dul qaadan karin Aare wuxuu magan u yahay ama uu martida u yahay dhammaan ummadda reer Somaliland khaasatan reer Gabiley haddii maanta reer Gabiley dhexdooda uu ka baxo sharaf dhac weyn ayaa ka soo gaaraysa ummadda gobolkaasi degan iyo dhammaan abtiyaashiisa u dhex joogay waxa kale oo jirta iyadoo mas'uuliyiin ay jeelka ku booqdeen wala dad kale oo iska asxaabtii ay booqdeen haddaba qodobka meesha yaalla waxa weeye ninkaasi haddii loo gacan geliyo maamulkaasi Djibouti waxa ka dhalan kara cawaaqib xumo sharaf darro iyo sumcad la'aan qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliland gobolka doonaba ha joogay waxa ku iman karta midan oo kale haddaba anigu waxaan halkan si gaar ah uga hadlayaa shacabka reer Gabiley dhammaantood oo si qurux badan uga dhiidhiyay si fiican uga hadlay si fiican u garab istaagay aadna u difaacay oo qaarkood kuma booqdeen jeelka Gabiley alxamdulillah waxaan rajaynayaa ninkaasi inuu si degdeg ah xorriyadiisa u helo annagu Aare waa bini aadan khalad waa geli karaa waana la xidhi karaa laakiin almuhiim waxa weeye khaladka uu galay halka uu ku galay hal gula xisaabtamo wixii toosina ah ee uu yeeshana hal toosiya hal saxo laakiin santa ayar la qaado sidii dad horeba ku dhacday oo Gabiley dhexdeeda laga qaaday oo Hargeysa laga qaaday Ismaaciilna loo dhiibay si aanay tiyo kala u dhicin waa in dhammaan reer Gabiley gaar ka hayaan hatta haddii habeen madow la qaadayo yaa dika anigu runtii gobolka dad badan baan ku ogahay oo wanaagsan oo qiimo leh oo aan marnaba de suuragalba ka ahayn ba in ninkaasi inta ay run habeen madow la qaado Ismaaciil loo geeyo khaladaadkaas oo kale hore u dhacayna inaanay mar labaad dhicin baana inay ka filaynaa aniga dhalinyaro badan ba gobolka igu matala saxaab badan ba igu matalaysa gobolka runtii si qurux badan ba uga hadleen haddii social media tahay hadda xataa TV-yada tahay aad bay uga hadleen arrinkaasina ildhow bay kula socdaan aniga waxaan maanta galabtii dhageystay muuqaal laga duubay dhalinyaro reer Gabiley oo run ahaantii si fiican u hadlayay qaar ehelka ah iyo qaar kaleba anigana waxay ugu matalayeen dhalinyarta saaxiibkii Muxiidiin Iswaade oo aadna ugu kalsoonahay inaanu arrinka ka seexan doonin hadaladiisina waxa kamid ahaa ka hadlayna madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan halkan baaq iyo codsi anigoo ku matalaya ku hadlaya afka dhalinyarta Gabiley waxaan ku leeyahay madaxweyne Aare noo soo daa Aare Suleymaan madaxweyne noo soo daa oo isagoo banaankiisa joogo xorriyadiisa haysta halala xisaabtamo xariga Aare wuuna dhibayaa waxa kale oo aan oranayaa arrinka beesha de uu soo codirtay reesha Isxaaq waliba Subeer awal haddii Aare la dhiibo inanteen guur beeshay arrinta in maganta la isku dhaafaa dhaqan maaha Aare aduu magan u ahaa Somaliland haddii ku duumayso Somaliland xataa wallahi haddii leeyahay waa la dhiibay waa laga dagaalamayaa Somaliland oo dhan baa ka dagaalamaysa hadduu Aare keligii yimiday Somaliland maalintu yimiday maanta keligii ma kumanaan dad warkacaya saa ku ogaato bulshada reer Djibouti waxaan ahaa anigu Aare abtigii ruma reesha Isxaaq oo dhammaan oo wabti keligii anigu abtumay laakiin waxaan leenahay madaxweyne haddii horta Somaliland waxaan ku haynaaba xorriyad hadal haddii hadal la isku xirayo wadankan mucaarid baynu samaysanay iyo muxaafid iyo axsaab iyo qofku inuu ra'yigiisa cabiro Somaliland adiga maalin walba waxba laga sheegaa dad baa ku dhaliila wad ku ogoshahay dastuurkeena dhigaya de waxaan khalad ba u arkaa iyadoo madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi dad dhaliilaya ay joogaan oo la dhaliilayo raali laga yahay oo loo xidhayn in madaxweyne dal kale
qof dhaliilay Somaliland lagu xiraa ceeb ay naga noqota محوريتي هذا الكا إنه نو مدح بنانا مدحونا في عن تذا كله قبل يوي قريسة ما هي سوماليلاند بقريسة والله وحنا عصرنا أنت دولتنا ما ندورنا قبل نعسلمنا جماعة تشيلنا جماعة وايه horta alxamdulilah waxba gaari maayaan dadkiisii buu dhex joogaa tolkii abtiyaaladii buu dhex joogaa marnaba looga baqan maayo sidii dhalinyaro hore ku dhacday oo iyadoon cidina ogeyn habeen madow halkaas lagala baxay oo loo geeyay Ismaaciil Cumar Geelle sanadkii hore Ismaaciil Cumar Geelle waxa loo soo dhiibay muwaadin reer Djibouti oo laga soo duubo muuqaal argagax leh wiilkan ka hadlaya waa Fuaad oo mas'uul la seexiyay haddaba haddii ay dhacdoba aare in la qaado aare Sulaymaan oo Fuaad agtiisa la geeyo shay runaatii waa waxaan qof kasta dul qaadan karin qof kastoo reer Somaliland iyo qof kastoo Soomaaliya haddaba waxaan aad ula dardaarmayaa dhalinyarada reer Gabiley maanta Somaliland oo dhan marka la yiraahdo mas'uuliyad baa idinka wada saaran laakiin haddana waa loo sii kala dhow yahay oo gobolkii uu ku xidhan yahay waa saldhigga Gabiley haddaba maanta ishu waxay haysaa reer Gabiley sida ay uga falceliyaan ama u difaacaan ninkaasi dhex jooga wixii sixitaana iyo wixii toosinaba haddii aare loo sameynayo isla gobolka Gabiley ha loogu sameeyo hadduu warkaas furun yahay anigu waan ka xumahay aaro walaal qof in la toogto waa sharaf ma ku tooganayo uu ku salcinaya ilaahay baan ku bari ilaahay ummadda ka qabto ummadda ilaahay Ismaaciil Cumar Geelle ka qabto in qalbi wanaagsan ma lahayd calankaad madaxa ku duubatay yaa tiyaasha haddii waxba ku qaban waayeen anigu waxba kuma qaban karo walaal sababtoo aanu dawlad ma ciidana ma ihi laakiin ballan waxaan ku qaaday musabiixi maanta aad u kaba qaad noqday uu iga dhintay aniga uu iga dhintay isaga dawladiisuba muxuu geystay nin hadduu Ismaaciil Cumar Geelle dadka uu naco ama uu nacayo intuu toogto kaga dhaqaaqayo waa la aasilaha laakiin dadka uu suuliyada ku xirayo ee uu cadaabka ifka uga saarayo ee dirxigu uu ka galayo lugaha aan ka xumay caaro ina dhibaatadaas ku dhacdaado reebtiga dhex jooga oo calankii ku duubtay madaxa Somaliland waan ka xumay walaa